أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. 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 waxaa aasaas iyo saldhig u ahaa horta kelimada macnaheedu waa sidaas, yani taageerayaal cali baan u nahay leeyihin sayidina cali radiyallahu canhu yaan taageerayaal u nahay. yani xaqiisii baa laga dulmiyey, waa la dhacay. abubakar iyo cumar iyo asxaabtii oo dhan ayaa dhacay bay leeyihiin oo dulmiyey, oo madaxnimadii asaga uu lahaa ayay ka qaateen. asaguna wuxuu ahaa bay leeyihiin wasigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam. rasuulkaa yidhi cali baa kursigaas iska leh, saasay dhahayaan. dee warkaas oon jirin. marka kelimada shiica sidaa way macnahay u socoto. fakarka shiicada yaa keenay, maxaase loo keenay? fakarka shiicada waxaa keenay nin yahuudi ah oo yahuudda yeman ah oo muujiyey inuu soo islaamay, islaam daahirsaday, dee carabigiina yaqaana, oo nin hadda yeman ku noolaa. cabdullaahi ibnu saba wuxuu ka faa'iidaystay xilligii khilaafadii cuthmaan radia allahu canhu, oo dee muslimiinta waxoogaa madmadow iyo fitan iyo balaayo ay bilaabatay. ilaan sayd camar kolkii la dilayba siduu nebigu sii sheegay calayhi salaatu wasalaam, baab fitana ayaa furmaya dilkii sayd cumar. sayd cumar xataa dadka dilay waxaad ogtihiin inay yihiin nimankan iiraaniyiinta ah oo abululu-a almajuusi ninkaasaa dilay. iiraaniyiintuna niman majuus ahoo dabka caabuday ahaayeen. kutubtooda hadda waxaa ku qoran ninkii sayd cumar dilay abululu-a shujaac diin, diinta yani geesigeedii waa halyey, yani halyey umadeed waay ninkii sayd cumar dilay. kutubta ay wadaadada iiraan u qoran ee shiicada. marka ninkaa yahuudiga ah wuxuu isku dayey, maadaama ay fitan iyo dhibaato yar jirtay, inuu ka faa'iidaysto. weliba islaamka gudihiisa intuu galo inuu gudaha ka dumiyo. dad buu wax ka dhaadhiciyey mas'aladan aalubeytkii baa la dulmiyey, oo sayd cali baa laga xoogay kursigiisii, aalubeytkii baa loo daraaday. waxaasu yuu dadkii ka dhaadhiciyey. dad badan ciraaq buu tegay, masar buu tegay, de dad buu kaxaysiyoo yeeshay. arrintaasi markii dambe waxay sabab u noqotay isageena inuu ansaar helo, dad taageerayaala inuu helo, sayd cuthmaanna la dilo. fitnadaas ninkaasi uu abuuray. marka yani aalabeyt baa wax loo geystaydan aad maqlaysaan, waa arrin lagu talagalay islaamka in lagu dumiyo oo lagu baabi'iyo. wax yani loo soo joogsan oo dadka qaaruun ay maqli karaan. haddii uu is-ohino wuxuu dhihi sayd cali oo nebigu u dardaarmay oo kan ahaa, intuu wax sheego yaa la dhacay. aalubeytkii nebigu ka dardaarmayna waa la dhacay, kursi lama siinin, oo xaqoodii aan soo dhicin, aan dagaalano, waxaasu akrinaya. ujeedaduna waa islaamka in la baabi'iyo. aalubeyt shuqulkuma lahayo sayd cali toone, waa meel manfad ahoo laga soo galo la rabo diinta islaamka in lagu baabi'iyo. mabaadi'dooda waaweyn oo arkaanta camalo ah ay qabaan aan wax isaga sheegna wax yar.
way tiro badan tahay waxa fasaadka ay rumaysan yihiin. culimmadii hore runtii inay dadka ku gaalnimo xukmiyaan way ka warwareegi jireen ayagoo iska arka wixii, laakiin qolada raafidada waxaan oola jeedaa shiicadan hadda socota ee iiraan ee shiica alimaamiya al-ithna cashariya, waa muslim si loo dhahan runtii aad bay udhib badanta sidaan arki doono. mabaadida ay rumaysan yihiin waxaa ka mid ah waxa aan u sheegayna waxaa weyde waxa inala rabeen baa waxana oo ay rabeen soomaaliya dhexdeeda inay taasi ka dhacdo oo dad caqiidadaa rumaysan ay nagu beeraan. haddana isma hubno in laynala joogay iyo kaloo ay nagu dhex jiraan, ilaan mudday shaqaysanayeen. shalayda qoyan waxaan ogaaday inay jiraan dad iiraan la geeyey si khufyo ah dhuumasho ah oo ka soo noqday oona aan ka warqabin hadda, cid ka warqabtaana ay yarta. marka waan tallaalanahay, shaki ma laha. mabaadidooda waxaa ka mid ah waxa la yidhaahdo caqiidat lbadaa'i cala allah. macnuhu waxaa weeye waxay aaminsan yihiin ilaahay waxyaalo ka qarsoon inay jirto uu dib ka ogaanayo. weligiin waxaasoo kale ma maqasheen rabbulcaalamiin oo maa kaana wamaa yakuun wax walba og in la yidhaahdo ilaahay waxbaa ka qarsoomi karo oo dib buu wax ka ogaadaa mararka qaarkood. idinkaa marka xukumin inay muslim yihiin iyo gaalo inay yihiin. rabbulcaalamiina dadka u dhaco hadalkaa markay leeyihiin ma ogtahay khaladba khalad buu kuu jiidaa. waxay aaminsan yihiin masale aan arki doono haddii xidhiidhiyuhu waxoogaa waktiga uu ii yardaayo. a'imadooda waxay ka rumaysan yihiin, a'imadooda waxay qabaan inay yihiin macsuumin. a'imadu waa madaxdooda, hogaamiyeyaashooda. waxay rumaysan yihiin 12 imaam ama hogaamiye oo iswada dhaldhalay oo macsuum ah oon dambaabaynin oo xagga ilaahay laga cayino oo laga magacaabay. haddana ilaahay toos buu ugu waxyooda ayaga. yani waxay leeyihin nebigana lafdan baa loogu waxyoon jiray, ayagana bil macnaa baa loogu waxyoon jiray. marka de waa toos ayagu fiiladu ilaah ba ugu xidhantay leeyihin. marka ragga sidaasa ilaa wixii moogta waa been la iska sameeyey. imaamiyadani waa dad caadi ah, ayagu unbaa bunbuuninaya. waxbay sheegayaan maalan dagaalka maanta waa lagu guulaysan baydhe, waxunbay sheegi, wixii baa been noqon. marka way isu qaban waaye. war haddee macsuum baa la ahaydeen sida ambiyada, warkiina sax ma noqon, waa sidee. marka waxaa yimid warkana war ma imadii inay yidhahdaan warkanagu waa saxe, ilaahay baa markii hore sidaa moodayay, haddana dib buu ka ogaaday. marka anagu warkii ilaahay baan idiin sheegnay kii hore iyo kii dambaba. qaladku halkaasoo oga yimid. qodob kale kaasaa ka tago warar badan buu leeyahay. qodobka kale usuushooda waa mawqifka ay ka qabaan kitaabka qur-aanka ee kariimka. qur-aanka maxay u arkaan? qur-aankan waxay u arkaan inuu naaqis yahay. musxafkan aan haysano 114 suuradood inuu qur-aan ka maqan yahay. waxay qabaan kitaab la yidhaahdo inuu jiro musxafu faadimo musxafkeedii. waxay aaminsan yihiin oo kutubtooda ku qoran. nimanku kutub bay leeyihiin: usuululkaafi, faslulkhitaab, bixaar alawaar, altawxiid, kutubta alxukuma alislaamiya oo wadaadka qumaynaha ee dhawaa u qoray. waxay leeyihiin qur-aanku ilaa 60 juz u dhannaa. waxaa ka gooyay intii kale oo waxaa loo gooyay leeyihiin ahlo beytka iyo ammaantoodii iyo sayd cali inuu kursiga leeyahay iyo ila aakhiri oo fara badan. hadde 30 juz baa intaas oo dhan ka hadlay, intaa un ka hadlay.
intii oo dhan waxaa gooyay dhaheen abubakar iyo cumar iyo caaisha iyo xafsa waxay sida gaarka abubakar iyo cumar iyo xafsa iyo caaisha ay ugu lacnadayaan waxay leeyihiin kitaabkii bay kala qariyeen qur-aanka bal meeshan balaayada la inoo duuduubayo qur-aankii saas ay u arkaan waxay leeyihiin qur-aankan hadda inagu aan akrinayn meelo sayd cali ammaanaysaa ku jirto waa laga gooyay leeyihin alam nashrax oo kale soo qaado waxay leeyihin alam nashrax laka sadrak wawadacnaa canka wisrak aladi anqada dahrak wajacalnaa caliyan sihraka saasaa ku taalay leeyihin waa beenta waxa ay wadaan waa waxa qur-aankiina aan ka tago marba hadday leeyihiin qur-aankan waa naaqis rabbulcaalamiinna wuxuu lehay inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu xaafiduun yani soo aayaddaas oo la beeniyey soo maa rabbulcaalamiin baa le anaa xafiday kutaabtaa lagu xafiday sadriga muslimiinta lagu xafiday hal xaraf ama hal xarako cid khaldi kartaa ma jiro haddana waxay leeyihin waa intaa leeg beenta intaa leeg bay yay sheegayaan sunada nebiga calayhi salaatu wasalaam see u arkaan kitaab la yidhaahdo ma ogola si u dhantay bukhaari iyo muslim iyo sitrulmahaad iyo barwaaqadaas axaadiisteenii tirada badnayd masaaniif musanafaad masaniid afarteed waxaas o dhan ma ogola hadda inayn ogoleen waxaabad ku garan soo asxaabtu nebiga kama soo warin sidaan arki doono asxaabtayba gaala u arkaan haddii nin aad gaal u aragtid midaad warkiisa maqlay hadduu kira nebigan ka soo maqlay ma rumaysanaysa marka waxay samaysteen waxaa bukhaari iyo waxaa bedelkiisa ugu jira kitaab la yidhaha usululkaafi oo nin la yidhaha kuleyn uu qoray waxaa ku yaalla wadaadadooda imaamyada ay ku sheegayaan hadalladooda ku yaalla sheekh fulan baa sidaa yiri sheekh hebel baa sidaa yiri hadda ayagu maogtahay wax balaayadu khuraafaadkii iyo dhalanteedkii baa intuu ka batay wadaadkan imaamka ay ku sheegayaan kolkay sheegay wax un ilaah camal bay ka dhigi waxaa kutubtooda ku qoran ninkii ziyaarta sayidina xuseen ibn cali a'imadoodu kamid yahay mogtaa 12 ninkii ziyaarta fakaanamaa zaara allaha fi carshi yay leeyihi waa sida isagoo ilaahay carshiga kusoo ziyaartay oo kale marka axaadiistii nebiga ma ogola waxaa laga yaabaa inaad isweydiisaan oo hadda shiicadu sidaa ma sheegaan oo axaadiista inay ogol yihiin oo qur-aankeena uu qur-aan u yahay oo qof baa i weydiiyay soo kuwan soo xajiya mabaadidooda waaweyn waxaa ka mid ah waxa la yidhahdaa ataqiya tuqya tuqyadu waxaa weeye qofku wuxuu rumaysan yahay waxaan ahayn inuu sheegto way hadda ayagu mogta kolkay inoo yimaadaan ma waxaad mood inay dhihi abubakar baa necabnahay iyo asxaabtii iyo oo qur-aankii waxbaa ka maqan may jamhuuriya alislaamiya aliiraaniya walaalihiina inaan idiin gargaarnaan u nimid annagu wax kale ma wadno waa beenaalayaal way qarin waxay leeyihin tuqyadaas oo ah in been la sheego oo la isqariyo arkaanta diintanada arkaanta ugu waaweyn bay kamid tahay arkaanta diintanada ka ugu weyn weeyay leeyihin marka waxay ku adeegtaaba horta nimanku waa beenta inay idin dhahaan abubakar baan lacanadayna waan arkay anigu ayagoo lacanadayo meel dibadahaas oo xaflad lagu qabtay oo codkoodii aan dhegaysanayay nin la yidhaha hebel hashimi oo telefishon ku leh tunis yaa beri xiwaar sameeyey ma ogtahay haddii la doodo waxbaad soo mantagi sidii awal been u sheegayeen oo isu qarqarinayeen markay xiwaar iyo dood noqotay wixii ay qabeen bay sheegeen anaa dhagahayga ku maqlay iyagoo leh caa'ishi iyo xafsi iyo lacnat allahi caleyh ayagoo leh marka tuqyadaas wax badan bay ku qarsadaan ay ku dhuuntaan oy dad caadiya inooga iska dhigaan marka qodobkaa la socda qodobkaa in la fahmo aada buu muhiim u yahay usuushooda waxaa kamid ah nidhi asxaabta inay gaaleeyaan waxay dhahaan asxaabta oo dhan way ridoobeen mar hadday sayd cali ay xukunkii ka qaadeen oo abubakar ay u dhiibeen sidaasay ku gaaloobeen waa daalimiin bay dhihi
أبو بكر يا عمرنا لعنة عليهم غضب وحبي سيده waxay ka reebaan baa la yiraahdaa riwaayad waxay sheegtaa saddex ninka la yiraahdo Abu Dhar al-Ghifari iyo Salman al-Farisi iyo al-Muqdad bin Aswad riwaayad saddexdaas ay ka reebaan bay leedahay tu kalena waxay leedahay may lix bay ka reebaan saxaabta Xasan iyo Xuseen iyo Ammar bin Yasir labada riwaayad kolka la isku daray lixdan mooyaan inta kale oo dhan waa gaari leeyahay nimankan oo shiicada ah oo waliba kuwan hadda aan ka hadlaynaa raafidada oo Iiraan kuwa hadda ay wadaan waxyaalaha waaweyn ay rumaysan yihiin qodobadan hadda aan sheegay ayaa kamid ah waxaa jira furuuq ayaga iyo inagu aan isku khilaafsannahay oo tira badan taa insha Allah qofka iga dambeeyo ayaa u daynayaa inta inaan kusoo gaabiyo ay la kulmaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأمشي وأنت الضياء لدرب أصلي عليك أصلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت الضياء لدربي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك وكل حنين وشوق إليك أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك وكل حنين وشوق إليك